bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkeena kuwooda ugu xiisaha badan leh xilligan idinkaga imaanaya warbaahinta aragti cusub. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka qaran oo dagaal xoogan ka dhex qarxay gudoomiyihii deegaanka garas baalley oo lagu aasay muqdisho, madaxweynaha Uganda oo qirtay in ciidamadiisa jooga Soomaaliya ay si bareera u xasuuqaan dad shacab ah, dowladda Norway oo soo qaaday qaar ka mid ah shaqaalaheedii ku sugnay waddanka Afghanistan, Imaaraadka Carabta oo maangelisiiyay madaxweynihii waddanka Afghanistan, madaxweynihii Afghanistan oo la baxsaday malaayiin dollar. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaargaroowa daawashada iyo la socodka warkayna. aan ku bilownay guddiga doorashooyinka qaran oo dagaal xoogan ka dhex qarxay. gudoomiyaha guddiga maaliyadda doorashooyinka heer federaal Cabdixiis ayaa warqad qoraal ah u diray madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. gudoomiye Cabdixiis ayaa madaxda waxa uu ku wargeliyay in habraaci doorashooyinka golaha shacabka ee warbaahinta lala wadaagay in aan loo marin wadadii ku habbooneed isla markaana uusan waxba kala socon. gudoomiyaha guddiga maaliyadda ayaa waxa uu intaasi ku daray in uu beri ka yahay wax kasta oo caqabado ah oo ka dhasho habraaci doorashooyinka golaha shacabka ee la shaaciyay. gudoomiyihii deegaanka garas baalley oo lagu aasay muqdisho, allow naxariiste gudoomiyihii deegaanka garas baalley ee duleedka muqdisho maxamed abuukar afrax ayaa gelinkii dambe ee maanta lagu aasay magaalada muqdisho. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish, taliyaha qaybta booliska gobolka banaadir korneel farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole, xildhibaano ehelada marxuumka, odayaal iyo waxgarad ayaa ka qayb galay salaada janaasada oo lagula dukaday isbitaalka Madiino. duqa muqdisho ayaa taasi u diray qoyska ehelada iyo bulshada reer garas baalley oo uu ka baxay marxuumka. gudoomiye afrax ayaa u geeriyooday qarax gaarigiisa lagula eegtay inta u dhaxayso degmada Kaxda iyo garas baalley. gudoomiyaha ayaa xilka qabtay bishii May ee sanadkan kadib markii qarax lagu dilay gudoomiyihii xilka kaga horeeyay marxuum Cabdiraxmaan Axmed Cali Garyare. madaxweynaha Uganda oo qirtay in ciidamadiisa jooga Soomaaliya ay si bareera u xasuuqeen dad shacab ah. madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa qirtay in ciidamadiisa Uganda ee ka midka ah howlgallada midowga Afrika ee Soomaaliya ay dhawaan gobolka Shabeellaha Hoose ku dileen dad rayid ah. madaxweynuhu waxa uu sheegay in falkaasi dilka ah ay ciidamadiisu geysteen xilli sida uu sheegay ay careysnaayeen, isagoo intaasi raaciyay in xubnihii dilkaasi geystay la xiray dacwana lagu soo oogi doono. Yoweri Museveni ayaa sheegay in magdhow siinayaan ehelada dadkii ay ciidamadiisu dilka u geysteen. dowladda Norway oo soo qaaday qaar ka mid ah shaqaalaheedii ku sugnay waddanka Afghanistan kadib qabsashadii ururka Taliban ee waddanka Afghanistan waxaa isoo taraya wadamada dadkooda kala cararaya waddankaasi. wasiiradda arrimaha dibadda ee dalka Norway Ine Eriksen ayaa sheegtay in 14 qof oo Norwejian ah ay dib ugu soo laabteen Norway. dadka yimiday ayaa isugu jira shaqaale iyo diblomaasiyiin ka shaqeynayay safaaradda ay Norway ku leedahay magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan. waan ku faraxsanahay in ay dalkooda dib ugu soo laabtaan si degdeg ah iyaga oo nabad qabo, waxaana cid walba oo haysata dhalashada Norway kuna sugan Afghanistan ugu baaqayaa inay isdiiwaan geliso si aan u caawinahay tiri wasiiradda arrimaha dibadda ee dalka Norway. Imaaraadka Carabta oo maangelisiiyay madaxweynihii waddanka Afghanistan. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa maanta sheegtay in ay sababo bini'aadanimo u martigelisay madaxweynihii hore ee dalka Afghanistan Ashraf Ghani kadib markii uu dalkaasi ka cararay xilli ay qabsadeen Taliban. wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Imaaraadka Carabta
waxa ay xaqiijisay in ay dalka ku soo dhaweysay madaxweyne Ashraf Ghani iyo qoyskiisa sababo bini'aadanimo darteed ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Imaaraadka Carabta. Ashraf Ghani ayaa Afghanistan ka cararay Axadii kadib markii Taliban ay ku soo dhawaadeen Kabul ka hor inta aynan kooxda soo gelin magaalada iyaga oo aan la iska caabin. qoraal uu ku soo daabacay Facebook ayuu Ghani ku sheegay in Taliban ay guuleysteen isla markaana uu dalka kaga cararay si looga baaqsado dhiig daato. ugu dambeyntiina madaxweynihii Afghanistan oo la baxsaday malaayiin dollar. madaxweynihii wadanka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa lagu soo eedeeyay inuu la baxsaday lacag malaayiin dollar. Ashraf Ghani ayaa la baxsaday lacag gaaraysa 169 milyan oo dollar markii uu ka tagay wadanka Afghanistan. Danjira Mohammed Zahir oo shir jaraa'id ku qabtay safaradda Afghanistan ay ku leedahay caasimadda Tajikistan ayaa khiyaano ku tilmaamay Ashraf Ghani. Zahir ayaa intaas ku daray in madaxweynihii hore oo khiyaano qaran ka galay dalka iyo dadka. Ghani ayaa la xaqiijiyay inuu xilligan ku sugan yahay wadanka Imaaraadka Carabta halkaasi oo uu maangeli ka helay. guud ahaan daawadayaal warkayni oo idinkaga imaanay warbaahinta aragti cusub halkaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa. tan iyo inta aan warcaynkaana dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaana Allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.